الله وبركاته سو dhawaada dhamaan khiyaarta ku xiran channelkeena Explore Option Somali insha Allah website-kan waxa la soo raagtay dhalinyaro badan maalin hore linkigiisana waan soo dhigay Telegram-keena website-kan saan ku sheegay marka hore waxaan ku sheegay in website-kan website real yahay website-kan weli lacag hore ma dhigan laakiin caawa lacag waan dhiganayaa weli waxaan dhiganayaa maadaama website-kani waxyaalo badan meelo badan aan ka eegay inuu real ka yahay website-kan waxaan rajeynayaa in caawa lacag dhigan doono idinkoo maartay arki doono by real waxay imaan doonaa meesha ay ku qoran tahay investment markaan investment nimaadno horta website-kan qaabka u shaqeeya haddaan idiin sheego website-kan horta lacagta ugu badan lagu shubtaa waa $50 lacagta ugu yar lagu shubaana waa $10 waxaan rajeynayaa markaan halka ka hadlo inaad fahmaysaan website-yada badan oo real aan ka soo hadlayna inaad maartay aad la qabsateen qaabkan website-yada noocan uga hadlayo website-kan horta wuxuu aad uga faa'iido badan yahay markaan dhinac walba ka eegay website-yo hore oo isaga la nooca aan ka soo hadalnay website-kan horta wuxuu aad ugu fiican yahay one month-ga oo waxaa jiray website hore oo lacag aan dhiganay oo aynu hadda ka suganay isaga haddii ilaahay idmo 275 laakiin website-kan haddaad dhigato $10 baad helaysaa maalintii badh bishiina waxaa sugaysaa 350 iyo dheeraad baad sugaysaa bishii haddii ilaahay idmo marka halkaa waxaad arkaysaa inuu difference weyn u dhexeeyo labada website website-kan aan hadda aan dul taaganahay uu ka faa'iido badan yahay laba jibaar website-ka hore aan lacagta aan deposit gareynay oo aan dhiganay way fiican tahay inaad maartay dad tahay qof investor ama qof maalgashada inaad dhowr meelood lugaha la gasho si haddii meel cilad kaaga timaado aad meesha kale ugu baxsato saad ogtiin horta suuqyada website-ka web investment-iga dad maqashid ama suuqyada investment-iga waxaa jirta shirkadda Google waxaa jirta website-yada inay iska qabsato website-kii oo si sharci ku shaqeynaya oo qaab sax u shaqeynaya in shirkadda Google website-ka iska qabsato website-ka ay ku dhigto website-kii ay maartay website-ka uu shirkadda Google lugaha kala bixi waayo waxaa dhacda marka qaar in shirkadda Google iyo website-ka isku caawishmaan shirkadda Google ay website-kii dhanba ay baan gareyso markaan hadalkaada idin jilciyo website-yada badan waxaa jirta shirkadda Google markay rabto in website-kan ay dambi ku baadho ama website kale oo deal la galo in website-ka hawada laga saaro kala maartay iyadoo suuqa ku ciriiriyo kala waxaa jirta habab ay shirkadda Google adeegsato oo website-yada ay hawada uga saarto marka insha Allah xarajiinaya midda inaad fahantaan anigu website-kan idin soo gudbinayo waxaan jecelahay markasta inuu website real ahaado waxaan jecelahay inaan lacagteeda aan dhinacay ka gashado idinkuna dhinacin ka gashtaan waxaan jecelahay inaan idinka iyo anigu aynu wada faa'iidno horta waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen okay website-kan horta وصاين شيء وبسيط ريال أوي وحاوير ولا ديبوس كريا وون داي $10 وحاو بدن ولا ديبوس كريانا $10 حلا حلقة تادينا سان لكن أنا وعاو هدي إلهي نفتي إنه داي إن شاء الله حارتيني إلهي إنه حلقة إنه قسمه وحارتيني عاو إن ديبوس كرين دونه لعك $10 one month صدق بقول يكونتني الإراد إن شاء الله إنه هيل دون هدي إلهي أوكي ده بس إذا العقل sidee wadooyinkii lacag loo soo dhigtaa qaabkii loo soo maraa video ka horreeyay baan ka hadlay qaabka website-yada lacagta loo dhigto meelaha loo soo maro iyo wax kasta oo marka lagaga baahan yahay inaad soo marto fadlan hadana video-ga soo daawo video-gan inta badan video dambe video wixii ka dambeeyay waxaan ka hadlaa qaabka loo deposit gareeyo si toos ah website-ka iyo trust wallet oo cidna u dhaxaynin insha Allah xarjiinay midda inaad fahanteen okay hadaba waxaan imaan doonaa meesha ku qoran tahay home markii nimaadno waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay deposit okay deposit markaan saa ku dhufano waxaynu copy gareysananaa linkiga aynu lacagta ku soo dhigan doonaa insha Allah okay hadaba linkiga waa kan copy address oranaa markiina copy address nahno waxaynu toos u aadnaa trust wallet-keena okay trust wallet-keena markaan toos u aadno waatan lacagteeni $75 bay nagu jirtaa okay markaan lacagteena saa ku dhufano kadib waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay send markaan saa ugu dhufano waxaynu addresska soo copy gareysana ku baas gareynaa halkaas okay baasti waan ku dhufanaa wax badan inagoo baahnaa because addresska hore inuu copy gareysnaa lacagteena hadaba u baahanahay baan gareynaa okay $50 baan rabnaa inaan gelino website-ka continue arana okay markaan continue nahno halkan waxay noo soo baxaya lacagtii aan deposit gareynay kaliya waxaan ku sii dhufanaynaa continue kadib lacagteena waxay toos u aadaysaa website-ka okay daba halkan waxaan ku oranaa confirm markiina confirm nahno kadib fingerka bas baan ka furana kadib lacagta saas ku baxaysaa
already. Okay, waxaan rajeynayaa midaas inaynu si saxan isula fahanay. Okay, website-ka imika lawarding buu ku jiraa. Trust wallet-ka dul lacagta diro, lacagta toos wuxuu aadaysaa website-ka marka lacagta toos u aado haddii lahaydno lacagtii inaga intaan website-ka dhexdiisa galno deposit garaynayna oo ku deposit garaynayna waxa loo yaqaano ku investment garaynayna okay. Waxaa laga yaabaa dhanka khadka error ba ka dhacay. Insha Allah errorkan waa saxina confirm mar labaad oranayna kadib figurka ka furana marka figurka ka furno waxaa laga yaabaa inuu khadku martay mararka qaar ka yar cuslaado laakiin insha Allah way noo dirmaysaa haddii lahaydmo website-kan tagayna kadibna $50 aynu halkaa ka dirnay baynu dhinaca kale ku investment garaynaa haddii lahaydmo. waxaan rajeynayaa midaan isla fahnay $50 marka waa artaa way noo baxay oo $50 USDT ah. waxay noo aaday website-kii all the way waxay noo soo hadhay $15 baa inoogu soo hadhay oo USDT ah. Okay, haddii website-ka dib ugu soo laabano horta website-ka waa kan marka dib ugu soo laabano oo website-ka uu kan yahay kadib waxaan ku dhufanaa meeshay ku qoran tahay my account halka ay ku qoran tahay my account ma ku dhufanaa ama account ma ku qoran mid ahaan adigu kadib waxaa arkaysaa halkaas in maartay $50 iyo $0.8 hore meesha inoogu jirtay. Okay, $50 baan baahanaa inaan investment garayno. Okay, investment meesha ku qoran tahay imaanaysaa markaad investment meesha ku qoran tahay timaadid hoos baad soo baxaysa 3 mar oo waxaa ka horeeya kaliya 1 day 3 day iyo 10 day saddexda step baa ka horeeya bas waxaad imaanaysaa meesha ku qoran tahay 30 days inta doonto adaa dhigan kara laakiin inagu sayna marka hore fiidiga biliga soo sheegnayba muddo bil ah bay dhiganaa haddii ilaahay nafteedu inoo daayo insha Allah tacaala. waxaan rajeynayaa fiidigiisa inagoo caafimaad qabna anoo caafimaad qaba adigoo caafimaad qaba insha Allah inaad daawan doonto haddii lahaydno. Okay, waxaan ku dhufanaa meesha ku qoran tahay investment kadib markii investment ku dhufano waxaad arkaysaa halkaas inuu nagu yiri total income-kaagu waa $365. Impossible, waa lacag badan. hal bil baad $50 waxaad ku samaynaysaa $365. waa fursad aad iyo qaali u ah waa 30 casho wax badan ma mud baa ka xiga. Okay, all the way xawarana investment kadib markii investment nahano waxaa arkaysaa purchase successful inuu yiri insha Allah tacaala khayr baan ka rajeynaynaa iyo in ay lacagtaasi inoo dhasho $365. Okay, waxaa arki doontaa principal-keenu inuu yahay $50 investment amount-geenu uu yahay $50 daily circle-keenu uu yahay 30 casho income-keenu hadda wuu ibar yahay laakiin insha Allah ay rajeynayno inay ina soo gasho $315 halkaasa iyo $50 oo kor loo hayo waa $365. $365 lacag saaran ma waa lacag badan insha Allah ilaahay noo calfo. waxaan rajeynayaa insha Allah marka insha Allah waxaan rajeynayaa xilligiisa haddii lahaydmo inaynu duubi doono inagoo lacagta la baxayna haddii lahaydmo. fadlan ku cusubtaa subscribe like and share wixii su'aalaad qabato insha Allah comment-ga igu weydii. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.